kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada janalkeena ka ah wararkan ku soo gudbino xogihii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka Soomaaliya ciidamo ka tirsan booliiska oo maanta is-hortaag weyn ku sameeyay waalidiin carruurtooda ay ku maqeen dalka Eritrea isla markaana la sheegay inay halkaa ku geeriyoodeen qaarkoodna rafaad iyo gaajo ay ku nool yihiin rasaas ay ooda kaga qaadeen maanta waalidiintaas oo Muqdisho ku banaan bixi lahaa haddaba qasaarooyin kala duwan ayaa la soo sheegaya waan soo gudbi doonaa maxay dowladdu ka damacsan tahay waalidiintaas oo si xor u banaan baxaya waalidiintoodana ama carruurtoodana ay raadinayaan waxa ku saabsan ayaa daawo doontaan laba nin oo u kala latay dalalka Malaysia iyo Britain oo lagu maxkamadeynayo magaalada Muqdisho Cornel Shuuto oo markaas suuratul maa'ida ku dul akhrinaya kadib markii lagu helay dambiye qayaano iyo qaramo kadib markii lagu helay dambi qaran iyo soo kale isku day afgambi iyo isku day dil ka dhac lahaa magaalada Muqdisho ay la doonayeen madaxda ugu sareysa dalka hadaba xukunka iyo maxkamadeynta raggaas u kala dhashay Britain iyo Malaysia ayaan soo gudbin doonaa qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa oo qayb ka ah wararka kaalmaha gobolka Kenya askar la sheegay inay ku laaday diyaarad la dhacday qayb ka mid ah dalkaas waan eegi doonaa daawadayaal ka qayb qaadida booliiska dalka aan ku sameynayno oo nagu dhiirigeliyo subscribe inay noo saartaan gabalkana furtaan una share gareysaan saaxiibadii meel kasta joogan idinkoo commentiga like inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin aan ku bilaawno sida ay inoo sheegeen dad goobjoog ah waxaa ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya maanta lagu wargeliyay in waalidiinta ay dhigi karin banaanbax ayaga oo markaas warbaahinta ka hor istaagay inay la hadlaan sida ay cabashadooda u muujaan isla markaana ay sii wadaan dalbashada in carruurtooda loo soo celiyo waalidiinta oo saaka isku soo urursaday isgoyska kilomitir 4 ee Muqdisho oo horay ugu dhigi jireen banaanbaxyada ay ku muujinayaan cabashadooda ayaa waxay ciidamada booliiska ku amreen in goobtaas aysan ku dhigi karin banaanbax ayaga oo aan wax sabab ah ay ku wargelin ama wax sabab ah aysan hayn ciidamada booliiska oo watay gaadiidka gaashaaman ayaa ugu dambeyntii waalidiinta isku qasbay inay iskaga tagaan goobta ay ku dhigayeen banaanbaxa inkastoo markii horeba ay ka madax adeegeen waxaana xogta ay dadka goobjoogayaasha inoo sheegeen ka hor intaysan is-hortaag ku sameyn ay markii horeba ay xabad ooda kaga qaadeen ama rasaas ciidamada booliiska waalidiintaas hase yeeshee warar hoose ayaa sheegay in qaar kamid ah waalidiinta ay dhaawacyo soo gaareen hase yeeshee inkastoo si rasmi ah aan loo xaqiijin karin waa markii ugu horreysay dowladda ay u adeegso ciidamada booliiska banaanbax ay dhigayaan waalidiinta ay dhalintooda ugu maqan tahay dalka Eritrea kuwaas oo toddobaadyadii la soo dhaafay banaanbaxyo ka dhigay Muqdisho xiisada ka latay dhalinyarada loo qaaday dalka Eritrea ayaa muddooyinkii dambe ka soo dareysay iyadoo ay soo baxyeen xogo sheegaya xaalad argagax leh oo ay ku nool yihiin dhalintaas oo markii horeba dalkaas loo geeyay tababar ciidan dowladda federaalka ayaa xogo kale ay sheegeen inay dhibsatay banaanbaxyada ay sameynayaan waalidiinta ku doonaya carruurtooda inay helaan oo war iyo wacaal toon aan laga helin isla markaana la sheegay in dalka Eritrea tababarna loo qaaday xogahii ugu dambeeyayna ay tilmaameen warbixin qaramada midoobay ka soo baxeen la sheegay in carruur Soomaaliyeed ama dhalinyaro Soomaaliyeed ay ka dagaalameen gobolka Tigray ee dalka Itoobiya halkaas oo dagaalo culus ay ka socdaan isla markaana mar kale hadda dagaalku dib u qarxay waalidiinta ayaa midaas ku abuurtay walaac iyo shaki ah in carruurtooda ama dhalinyaradooda loo qaaday dalka Itoobiya halkaasina dagaalo ay kula galeen jabhadda TPLF dhinaca kale daawadayaal haddii aan eegno maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa bilowday dhageysiga laba eedeysan oo ajaanib ah kuwaas oo loo haysto inay ka tirsan argagixisada Al-Shabaab dagaalamayaasha Al-Shabaab labada eedeysan ee maanta ka soo hormuuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxay u kala dhasheen dalalka Malaysia iyo Britain balse weli lama shaacin magacyadooda eedeysanayaasha ayaa loo haystaa inay si sharci darro ay ku soo galeen dalka iyo inay markaas ka barbar dagaalameen Al-Shabaab oo dagaal adag kula jirta dowladda federaalka soo kale labada eedeysane ayaa waxaa loo haystaa in muddadii ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho ay geysteen tacadiyo iyo gaboodfallo kalena muwaadiniinta ayna ka qayb galeen weeraro argagixismo ayagoona isku dayay qayaano in dalka ay ku sameeyaan ayagoona doonayay in madaxda dalka ku sareysay qaarijiyaan labada eedeysane ee maanta maxkamadda la horgeeyay ayaana waxa ay ka mid noqonayaan eedeysanayaal dhowr ah oo dacwad la xiriira shabaabnimo loo haysto kuwaas oo dacwadooda ay dhageysigoodana bilowday maxkamadda ciidamada qalabka sida inta badan maxkamadda ciidamada qalabka sida dalka ayaa xukunno kala duwan ku rida shakhsiyaadka ka tirsan Al-Shabaab
kuwa lagu soo eedeeyo dambiyada kala duwan iyo qiyaamaynta qaranka ayagoona markaas ugu xukumo dil toogasho oo kama dambeys ah, halka kuwa qaarkoodna loo arka dambiyadu yihiin kuwa dhexdhexaad ah lagu xukumo xabsi da'an uutul cimrigood inay ku noqdaan xabsiga. qaybihii dhexe janalkeena ka wararka ayaa daawanaysaan, nagu dhiirigeliya daawadayaal subscribe inaad noo saartaan. waad idinkaga mahadcelinaa daawashadiina muuqaalada quruxda badan ee Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya caalamka ku saabsan aan halkan kusoo gudbino, siina sheer gareeya. markana diyaaradda ay leeyihiin militariga Kenya ayaa ku dhacday deegaanka lagu magacaabo Ermad oo markaasi u jirta diyaaradda ay leeyihiin militariga Kenya ayaa ku dhacday deegaanka lagu magacaabo Ermad Oltinga, taas oo ku jirtay howlgal tababar sida uu baahiyay wargeyska The Standard. wargeyska ayaa kusoo warmaya in diyaaraddaas ay saarnaayeen ugu yaraan 23 qof, waxaana la arkayay marka ay soo dhaceysay hay'adda oo aad u holcaysa. diyaaradda oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan Kenya ayaa waxaa la soo warinayaa inay ku laadeen 17 askari oo saarneed, halka qaar kalena la samata bixiyay ayaga oo dhaawacyo culus qaba. ciidamada difaaca Kenya ayaa dhankooda ayaguna xaqiijiyay dhimashada in la diiwaan geliyay shilkii subaxnimadii, inkastoo aan la helin tiro cayiman oo khasaarooyin ah oo ay soo gudbisay afhayeenka ciidamada dalkaas Kenya Ziboro Kiko. waa wax laga xumaado. shilka kadib waxaa la kulanay khasaaro nafeed, geedi socodka la xirinayo qoysaska si aan u gaarsiino macluumaadka iyo tacsida. ciidamada KDF ama Kenya Defence Force ayaa socota ayuu yiri afhayeenkaasi. diyaaradda oo ahayd nooca helicopterka ayaa ilaa hadda la garanayn sababta keentay inay soo dhacdo xilli ay ku jirtay howlgal tababar. qaybihii dhexe ayaan qaybihii dambe ayaan sii maraynaa daawadayaal, nagu dhiirigeliya subscribe-ka oo markaasi gambalaalka furta oo na sii shirgaray ee saaxiibadiin meel kastoo joogaan. commentiga like inoo reeba, aad baad u mahadsantihiin ka qayb qaadada dib u dhiska dalka aynu ku sameynayno. markana wafdi ka socda Ethiopia ayaa waxa ay gaareen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliya, waxaana wafdigaas ku jira qaybaha markaasi mas'uuliyiinta ugu sarreeya dalka Ethiopia. wafdigan ayaa waxaa horkacay wasiirka maaliyadda dalka Ethiopia Ahmed Shide, waxaana sidoo kale ka qayb ahaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. mas-uuliyiinta ayaana soo dhaweyn kadib kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi, iyagoo markaasi ka wada hadlay xiriirka labada dhinac, gaar ahaan iskaashiga dhanka ganacsiga ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Ethiopia. ujeedka socdaalka ayaa la xiriira xarig jarka dekedda Berbera sida ay shaaciyeen mas-uuliyiin ka tirsan Soomaaliya oo wariyaasha kula hadlay magaalada Hargeysa. qabanqaabada munaasabadda daafurka dekedda oo dib u habeyn lagu sameeyay ayaa haatan si weyn looga dareemaya magaalo xeebeedka Berbera. Ethiopia ayaa saameyn ku leh dekedda magaalada Berbera, sidoo kale waxa ay markaasi degtaa Ethiopia ayaa saameyn ku leh dekedda magaalada Berbera, sidoo kale waxa ay markaasi kala soo degtaa badeecado kala duwan oo la geeyo dalkaas. Soomaaliya ayaa xiriir la leh dowladda Ethiopia wallahu muddooyinkii dambe uusan ahayn sidii hore, waxaana ay sameeyeen isbahaysiga ay sameyseen Somaliland ayaa xiriir la leh dowladda Ethiopia wallo muddooyinkii dambe uusan ahayn sidii hore, waxaana sameeyay isbahaysiga ay sameyseen Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea, halkaas oo madaxweynayaasha saddexda ah ay yihiin kuwa si weyn iskugu dhow. waa kuwa lagu tilmaamay in yihiin kaliya taliyayaasha ugu xun ee Afrika. waa Abiy Ahmed, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Asiyaas Afwerki oo ah kaliya taliyaha ugu weyn ee Afrika markii loo eego kuwa kale ee Afrikaanta ee xilalka haya. waana uu ka madal adeeg yahay sida uu dhaqmo iyo sida markaas dalkiisa u maamulayo, isaguna ka reebay dalal kale ee geeska sida markaas ay caalamka xiriir u leeyihiin. inkastoo Eritrea ay tahay dal markaas isku tashtay waxyaabaha kale ay ugu baahanayeen caalamkana kaligood sameystaa, halka Ethiopia iyo Soomaaliya yihiin kuwa dhexdhexaad ah inkastoo caalamka ay u horsadaan gacmaha. saddexdan hogaamiye ayaa lagu tilmaamay in yihiin kuwa markaas geeska Afrika bedelaya, maadaama isbahaysiyo cusub oo waaweyn ay sameyseen kuna dhawaaqeen. qaybihii gabagabada janalkeena ka ayaan soo gaarna daawadayaal, guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa. nagu dhiirigeliya subscribe-ka inaad noo saataan, gambalkana furtaan, una sheergareysaan saaxiibadiina. aad baad u mahadsantihiin ka qayb qaadada dib u dhiska dalka aan ku sameynayno. nabadgelyo.